بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، waxaan walaalayaal isku dayi doonaa inaynu isdul taagno dhowr qodob oo ku saabsan maalinta barakaysan ee Carafa ee fooday nagu soo haysa. waa maalinta aad iyo aadka u barakaysan ee aad iyo aadka u fadli badan. maalintan iyada ah waxaan doonay laba qodob inaan ka dhaho. ومدة كوبادة قيمها يقدرك يشرفتا يملقها أي أمد إسلامك كل حلا هاي يسيد الدين تين إسلامك أي أقيم يسي ونشرف ضي وجهرين وحكمتها ما المطبنا وعشر ذي الحجة اللي ورانيو وإلهي سبحانه وتعالى وكل عرطي والفجر وليال عشر وحكروا كمتها أيامها حجك إلهي سبحانه وتعالى سيقوني وقارنا وقرآنك وقحصي ليذكر اسم الله في أيام معلومات مالمها معلومات كحددنا مقعاما بين كجرتا مالنتني مالن قيمه هذا يشرفت هذا يقدر كيدو آدي آدوي يهوي سسترتد بمهم تهين الدتك وقادان وحكرا يضرب فضل بدن maalinta ku sii xigtay ciida ah iyo waliba maalinta ku sii xigtay iyaduna ayaa mutashriiqa maalinta u horeysay ee 12aad guud ahaan maalmo saa u fadli badan weey. nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inna min afdali ayaami 'inda allahi yawm an-nahri thumma yawm al-qarri. maalmaha waxa ugu fadli badan Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa maalinta dhuundhowga ee ciida iyo waliba maalinta ku sii xigta iyada qudheeda min lagu nagaanayo oo kama qaala nabiyyu calayhi salaatu wasalaam. walaalayaal ugu horeyn Allah subhanahu wa ta'ala khalqiga isaga abuuray. Allahu khaliqu kulli shay. isagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala dunyada dhan abuuray buu kala sarsaraysiiyay uu kala fadilay anbiyada la fadilay oo laga fadilay ala ghayrihim min an-nas. malaa'iktu ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqiinta kala ka fadilay amkinada iyo dhulalka isagoo Allah kelidii caalamka wadale haddana dhulka qaybo kamid ah la fadilay oo inta kale laga hormariyay lagana sarreysiyay. ardul haram ayaa dhulka inta kale ka sharaf badan kana qiimo badan kana ka fadli badan. xilliyada iyo azminada isagoo Allah subhanahu wa ta'ala kelidii wada abuuray haddana waa kala sarreysiyay oo uu kala fadli badnaysiyay. bisha ramadaan bilaha kale way ka wacan tahay oo way ka fadli badan tahay. طبعاً كان ذي الحجنا مالمها الدنيا ugu fadli badan yihiin. maalmaha ذي الحجة waxa ugu sii fadli badan maalinta berito ee Carafa. maalintaasi haddaan dul maro qiimaha iyo qadarka ay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu muslim warinayo fi saxiixihi waxa la weydiiyay soomka dharaarta la soomo. kolkaas buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yukaffiru sanata al-maadiyah والباقية سنة كي هورا إيا سنة كسو سعدا دنبيجي لغو دافع. دنبيجي سنة كهورنا قفك والغا دافيا. دنبيجي سنة كسو سعدنا والغا دافيا يو إن إلهي سبحانه وتعالى وحو قفك كردقيا قف هديو دنبيجي لبا سنة كسو سعدا هدنا إلهي صفة ووافتشيو كتوبتكين كدنبيجي إسلا سيدو كلا ربي وكا أقبلو. marka dunuubta laba sanadood baa lagu dhaafayaa maalintan. waxa muhiim ah in la ogaado dunuubtaasi waa kuwa xuquuqda basharka aan ahayn laakiin xuquuqda basharka ee dadku ay isku xidhan yihiin iyo waxyaalaha basharku kala galaan iyagu inay dadkii si gooniyo gaar ah looga fasax qaato oo si gooniyo gaar ah looga xalaashaday u baahan yihiin. waxa kale oo culimadeena badankoodu ay ka soo reebaan dunuubaha waaweyn ee kabaa'irta ee si gooniyo gaara tawbad iyo alla u noqosho ugu baahan. laakiin inta kale oo dhan waxa qofka lagaga sayrinayaa lagagana masaxayaa maalinta soomka u soomo.
maalintani qiimaha ay leedahay iyo qadarka ay leedahay waxa ku tusinaya waa yoomkii ilaahay diinta soo gabagabay soo degitaanka quraanka ayaa wuxuu soo dhammaystiray soona gabagabooday yoom carafa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آيات داس وحي سودكتي يوم عرفة أي سودكتي واليوم ما لنش معانا كباقمي سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وشيقي كما داموا ما لنتي الدين تينا من السوق بقبيا يتهاي قيمة وين يقدر وين يشرف وين بين النار هذا ما لنتن إنا نحصصنا وانا ما لنآذيات وفضل بدن وما لنت كليا إلهي سبحانه وتعالى وسودقه إلا إلهي هبين كيف سودقع ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ليل الأخير هبين كاستمركا هبين كصدح ميلاد وميل هرسان تهيبو أي رب سبحانه وتعالى سودقع مركا صدتك الله أضلع باقي أنا أضرع وحول هذا الله سبحانه وتعالى من يسألني فأستجيب له يا وحي ويدي سنيا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له يا إبريا يا أن أقبلا يا وحي قعد سنة يا أن سيا أرنكاسي هبين كبي قوني كته لكن كل خي مال نقطه مال انت كلية يا الله سبحانه وتعالى وسود دقوا مال انت عرفه سيد حديثك صحيحة كسوغا إلهي ملايين تضطأ بجبل عرفه كرتاغن كليلك يبعضك ويرفاتك وكل عيوس ودوادا كل كاسب إلهي سبحانه وتعالى أولانا يا إسوغا ملايكته وقفانا يا هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا كواسي وأضامهيغي يقول بورد بدن وبساسا ورفات بدن صومري بي يمادين وميلك لدوان بي كي يمادين إلهي با سبحانه وتعالى صدا وقفانا يا تدكا فراها بدن له قوبتا إذا إسكو تغيي عرفة وحا لوغو بحي مركا علمادو شيغيان صوابو تصميع وحي كسو دران way ka mid dhigaan inay tahay maalinta ummadda islaamku isbaranayaan malaayiin dad goobta iyada ah ay isku baranayaan maalintaasi sidaas ay u fadli badan tahay waxa kale aad u daruuriya maalintani waxa weeyi maalinta cadadka ugu badan ee tira ah ee dad muslimiin ah ilaahay naar ku xoreeyo arinkan nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa ka soo inuu yiri ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abda min an-nar min yawmi Arafah ما جرت مالين كبدن إلهي سبحانه وتعالى حرينته ضد نار كحريه مالين تعرف مالين كبدن ضد كلا حريه ما جرت ومالين تأوجب بدن عددك ومالين تعددك أوجب بدن ضد نار لك حريه ساس النبي إليه عليه الصلاة والسلام ساس درتين مالين توحى مهمة إن قد بدن نوع عاصة إن تاين أجر وصنو waxa looga baahan yahay qofka muslimka ugu dambeyn dhowr qodob waa looga baahan yahay wanaaga iyo khayrka iyo taacadka iyo samafalka inuu qofku farabadiyo cibaado oo dhan inuu farabadiyo ayaa looga baahan yahay cibaado oo dhan inuu qofku farabadiyo kolka nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ma min ayaamin al-amal as-salih fiihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr maalin iyo maalmo amal saalix oo wanaagsan oo qofku la yimaado uu ka fadli badan yahay ma jirto midka maalmaha la yimaado walku nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sida amalka saalix waa fara badan yahay dhikriya alla xusbu noqonaya quraan bu aqrin noqonaya ducaa iyo alla bari mu noqonaya sadaqa iyo wax bixin iyo dadka baahan ee masaakiinta tabaaleysana wax la siiyo noqonaya family iyo qaraabo iyo ehel iyo sokeeyo waxa dad wadaagtaan booqato xiriirsid buu noqonay u fara badnaan kara sastarteed bay muhiim tahay acmaasha faraha badan leh inuu qofku uga faa'iideysto acmaasha badanna dadka qaybo wax bay ku fiican yihiin qof baa quraan akhriska ku fiican qof baa sadaqadu dhib la lahayn qof bayna soomku dhib la lahayn qof baa booqashada dadka iyo dhaqan wanaaga dadku una dhib la lahayn qof baa waxa u fudud ee u gooniya ilaa in abwaabta khayrka waxa loo farabadiyay si qof kastaba waxa ugu fudud uu la yimaado waxa ugu fududna uga faa'iideysto qof kastaba wixii ugu fudud ha uga faa'iideysto si gooniya ahadiista qaar waxa tilmaameen فاكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل وحددوا فربدسان تسبيح سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله وحكلوا هذا الضروري ادي ادنا مهمه ما انت عرف سي غوني او غار ان شاء الله هيو دعاء يا الله بريغا
وقوب آد لو تهنسن يهي آد يا آدنا الله فيليو إني مستجاب الدعوة هاي والنبي عليه الصلاة والسلام وحجري خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء يا الله بري وحا أوفي عن أنا خير بدن ما لنت عرف ميتك للي مادو وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل أني أنبيادي إيقوه الرئي دعاء كو الله برينون الله كبريننا وحا أوفي عن إنه قفك كو عليو وقفك كو دعايستو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل كاس وحا مهم الدعاء لأنه قفك أغادو أو الدعاء يا الله بريغا فربضيو مسلمين تكلوا ودعيو dadka baahan uu duceeyo dadka dhibaataysan uu duceeyo ducada uu qofku dad islaam uu duceeyo iyagoo waliba ka maqana si gooniyo gaar shariicadu u sheegtay inay tahay mid la aqbalayo da'watu almuslimi li akhihi bi dhahri alghayb mustajaba oo kama qala nabiyyu alayhi salatu wasalam bariyada uu qofku walaalkii u duceeyo isaga oo ka maqani waa la aqbali marka qofku waa inuu ducada ogaado ilaahayna inuu naar ka xoreeyana Allah subhanahu wa ta'ala uu ka codsado naar in laga xoreeyo waa shay weyn adduunka waxa loo socdaa ee loo hirdamaya ama loo ordaya agata waxa dadku ay cibaado u wadaan ee dadku ay masaajidada u tagayaan ee dadka loo wacdinayo ee dadka diinta loogu dhiri gelinayo ee shar oo dhanna looga digayo wanaag oo dhanna loo amraya waa si janno loo galo naarna looga badbaado فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ساسترتد با مالنت عرفي waxay tahay maalinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala qayb badan oo dadka ah naaraha uu ku xoreynayo jannadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Allah subhanahu wa ta'ala jannadana u qorayo inay mutaystaan galaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa inuu dunuubteena oo dhan dhaafo dunuubteena naga masaxo Allah subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa dunuubta waalidkeenu dhaafo muslimiinta tabaalaysan inuu Allah subhanahu wa ta'ala u gargaaro kuwa geeriyoodayna inuu naxariisto wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam wa billahi tawfiiq